السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa dhacda in dadka qaarkood markay hurdaan inay cagaha kala baxaan shayga marka ay huwan yihiin sidaa darteedna ay door bidaan in marka ay seexanayaan ay cagaha gashadaan sharabaado si aanay cagahoodu u banaanaanin xilliga hurdada. sidaasoo ay tahay haddana waxay dadka qaarkood aaminsan yihiin in ku seexashada sharabaadadu xilliga habeenkii ay keento caafimaad darro. hase ahaatee xeeldheerayaasha caafimaadku waxay sheegeen in aanay arrintaasi sax ahayn. taa beddelkeedana waxay sheegeen in sharabaadada oo lagu seexdo xilliga habeenkii gaar ahaan wakhtiga qaboobaha ay jidhka u leedahay faa'iidooyinkan. in qofku habeenkii uu gashado sharabaado oo uu ku seexdo gaar ahaan xilliyada qaboobaha waxay keenaysaa inay isku dheeli tirmaan xaraaradda jidhka iyo habka wareegga ama socodka ee dhiigga. sidoo kalena waxay yaraanaysaa fursadda qofku uu ku qaadi kara xanuunka loo yaqaano maradu raynood. sidoo kalena xilliga qaboobaha inuu qofku habeenkii cagaha gashado sharabaado oo uu ku seexdo waxay ka caawisaa inaanay cagaha qofku noqonin kuwo qallalan. waxaana fiican xilliga qaboobaha qofku intuu cagaha marsado saliid ama kariim kolba kuu isagu door bidayo kadibna inuu gashado sharabaado oo ku seexdo. haddaba waxay ku taliyeen khubarada caafimaadku in sharabaadada habeenkii lagu seexanayaa ay noqdaan kuwo nadiifa oo aan ahayn kuwii qofku uu xidhnaa xilligii maalinimo ee shaqada. sidoo kalena waa inaanay sharabaadadaasi ahayn kuwo cidhiidhiya oo kala xidhi kara socodka dhiigga. waxaana muhiima inay yihiin sharabaado cudbiya ama dun ah. aad baad u mahadsantihiin.